السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن داوديال أروريا سوبان بانا لنا همال والبجوكتان با qodobada aad wararkeena aroonimo ku maqli doontaan waxa kamida afayeenka kooxda TPLF oo ku hanjabay meel kasta oo cadawgooda uu ka soo duulayo in ay halkaas ku weerari doonaan halkaan ku burburin doonaan. sidoo kale taliyaha sirdoonka ciidanka dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in kooxda TPLF gobolkeedii dhacay waqtigeedina soo dhamaaday. dowladaha taageeraya gacanta siinayana ay ilaashadaan dowladnimadooda. sidoo kale colaadii ka taagneyd gobolka Soomaalida iyo Canfarta dhaxooda ayaa waxa la soo sheegayaa inuu ilaa xalay waxba dhicin laakiin dhufayska la isku jiro. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa ku eegi doonaa wararkeena aroonimo. taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha 8 2021. haddaynu u guda galno wararkeenii afayeenka TPLF oo la wareystay xalay TV-ga Tigreega ama warbaahinta Tigreega taageerta laga wareystay ayaa la soo sheegayaa in uu yiri dalka Itoobiya wuxuu marayaa marxalad adag oo la qiyaasi karin meesha uu u dambeyn doono. sidoo kale afayeenku waxa uu sheegay in ay wadaan kooxaha dawladda iyo huwantoodu abaabul ballaaran taageeran ay raasanayaan. aan u jeednaa adduunka dhan in ay wareegayaan meel kasta ay haataba ay albaab kasta ay gargaraacayaan. hase yeeshee wuxuu tilmaamay albaab kasta oo ay gargaraacaanba inaan waxba ka dheefaynin oo ay taasi tahay siyaasad khaldan oon cidina garab ku siinayn. haddii garab la siiyana ayna wax ay soo kordhinayaan ayna jirin. sidoo kale afayeenka waxaa la weydiiyey ujeedada maxay tahay aad u gasheen gobolka Axmaarada iyo Canfarta. wuxuu ku tilmaamay gobolka Canfarta iyo Axmaarada ujeedada u galan inay tahay difaac la difaacayo deegaanka Tigreega iyo shacabka Tigreega. waxa uu yiri shacabka Tigreega waxaa loo geystay dambiyo waaweyn, waa la bahdilay, waa la baabiyay, gaajo lagu laayay. maxaa yeelay deegaanka Tigreega kama jirto koronto, biyo, wax ka jira male. meel uu bil'aadmi ku noolaan kara male. anagu naf baaban badbaadinaynaa naf la rabana qudha laga jaro yaanu ka hortaaganahay nimanka cadawga ee soo duulaya. sidoo kale afayeenku waxa uu sheegay in uu shacabka Tigreegu dhammaantood ay is abaabulaan, cid kasta oo wax qaadi karta ay qaadaan. maxaa yeelay kooxdan dawladda waxay aaminsan tahay ruux kasta oo Tigreega inuu cadow yahay oo ruux kasta oo Tigreega qudha laga jaro. wax Tigreega la dhaan in adduunka ka basii jirin ee rabaan marka anagu waxaan ku jirnaa isdifaacid iyo dadka Tigreega oo naftooda la badbaadiyo. nagama aha in aan u galay gobolka Axmaarada iyo Canfarta dhul ballaarsi ama inaan dad guumeysana maana u galin. sidoo kale waxaa la weydiiyey in ay sii dhaafayaan meelahaas. waxa uu sheegay cadawgoodu hadduu Oromo iyo Soomaali iyo meel kasto ay haataba haddaan aragno inay halkaas khatar ka soo wajahantahay ama dad cadow nagu ah uu ka soo duulayo halkaas aan ku beegsanaynaa. halkaasna ma soo dhaafi doonaan, halkaas aan ku burburin doonaa, awoodeedana waa leenahay. sidoo kale waxa uu yiri waan u jeednaa Abiy Ahmed orodka uu ordayo oo kolba albaab garaacayo meel kastana uu tagayo. waxaa la sheegayaa la yiri in ay Turkiga tagay oo taageero uu ka raadsaday oo Daronis wax la sheegay. Daronis sheegay wax walba oo soo qaatay wuxuu yiri TPLF ujeedadeeda ma hor istaagi karto. TPLF-na waxaa ka go'an meel kasta inay cadawga ku burburiso marka ugu dambeysana guuldarradu ayaga ay raacaysaa buu yiri. sidoo kale afayeenka waxaa la weydiiyey dagaalka ay Eritrea ku soo qaaday sidoo aragtaan ama ma awoodaan inay iska difaacdaan. wuxuu yiri anagu Eritrea maalin uguma qaadanayso. hase yeeshee wuxuu yiri qolo kale nooga daran baa jirta, cadow ka weyn baa jira. cadawgaas marka hore gacan bir ah ku qabanana kadibna cid kasta oo joog la waayo jahannaba loo diray buu yiri. sidoo kale taliyaha sirdoonka dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in ay kooxda TPLF gobolkeedii dhacay. wuxuuna ku dhaartay TPLF inay cagta hoosteeda la gelin doono. wuxuu yiri waan u jeednaa TPLF inay qalalaasa ka wado gobolka Axmaarada iyo
canfarta hase yeeshee wuxuu yidhi weli waa loo sii seeta dheereynayaa oo TPLF waxaa la rabaa in ay ismoodo wax ayna ahayn adduunkana inaan tusnaa rabnaa TPLF marka aan u soo jeesano waxay ayadu gacanteeda ku keensateen in lagu cadaabi doono waxa uu yiri TPLF ma aha dad bini'aadmi ah waa dad wuxuu yiri sida dugaaga ah waxa cadayn in ugu filan buu yiri markii ay soo galeen gobolka Axmaarada dhulkii ay qabsadeen ciidamadu ooga baxeen waxa ay ka geysteen waad u jeedeen inay xataa albaabadii guryaha ay fujisteen oo TPLF nooca u dhaqmeen bililqaysiya oo ina ahayn dagaal una ka ahayd weelasha raadsasho wiiri waxa uu yiri TPLF waxa gurteen qaadooyinkii iyo digsiyadii guryaha albaabada ka fujisteen biri hase yeeshee taasi ma aha wirtu looga dabahari doono TPLF-na way eedi doontaa wiri taasi taliyo sidoo kale waxa uu yiri wadamo badan man soo maray ra'iisul wasaaraha waxaan soo aragnay dalka Turkiga hase yeeshee wuxuu yiri waxaas oo dhan waxay naga tahay TPLF seetada u si dheereynayno oo moodo wir anagu inaan dad cararay ama cabsaday ama taageero raasina moodo laakiin wuxuu yiri TPLF taasi way eedi doontaa wali taladii TPLF lagu tirtiri la way socotaa sidoo kale taliyo waxa uu sheegay TPLF in magaalooyin badan laga xoreeyay maalmihii la soo dhaafay hase yeeshee wuxuu yiri wali TPLF meeshadii la rabay meena soo gaarin laakiin godkii TPLF loo qoday wali waa qodan yahay hana ogaadaan muditaasu adduunkuna waa ogyahay sidoo kale taliyaha sirdoonka qaranka dalka Itoobiya waxa uu sheegay dawladaha taageeraya TPLF haba ugu horeeyaan Mareykanka iyo midowga Yurub inay ilaashadaan bil dawladnimadooda caqabad xumada ay ka faa'iidi doonaan in ay mar gacmahooda ku cabi doonaan taliyo waxa uu sheegay cidda TPLF taageeraysa ama gudaha Itoobiya ha joogto ama dibadda ha joogto cid kasta oo TPLF taageerta maalin aan maanta bay ooyi doontaa buuri TPLF waa koox god madow ku si dhacaysa cid kasta oo taageertan ayada baa isbahdishay iyo kharash iyo balaayo kale isku riday TPLF cidna yeen isku lugeyn TPLF god bay ku dhacday godkana kama soo noqoni doonto taariikhdana waxay xusi doontaa in la dhihi doono koox TPLF laga jiri doontay oo dalkan Itoobiya ka talin jirtay taliyo sidoo kale waxa uu sheegay dadweynaha Itoobiya inuu nabad yahay hase yeeshee kooxda inay qalaasa wadana sida ugu dhaqsaabeen la soo afjari doono daawadayaal falanqaynteen yareed intaas ay ku koobnayd taniya kulanti damowcan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh